habeen dhaweeto annagoo joogna meeshii magaaladii Stockholm ayaa nin dhallinyara noo yimiday markaasuu yidhi sheekhow dadkan masaajidda joogeed wacdinaysaan iska daa buu iga yidhi dadka dibadda jooga u tag buu iga yidhi dhallinyarada u tag buu iga yidhi waayo baan ku idho wuxuu yidhi 10 sano xarigan hadda ka soo baxay buu 10 sannadood iyaa soo liqay buu yidhi 500 oo dhallinyaro Soomaaliya oo intooda u badan cimri daa'im lagu wada xukumayba cimri daa'im lagu xukumay ayaan jeelka kaga soo tagay oo mid walba qol yar oo inta leeg buu ku jiray uu leeyahay way hooyoy way aaboy buu leeyahay buu yidhi 500 oo dhallinyaro ka soo baxay buu yidhi oo jeelasha ku wada jirta oo intooda badan lagu xukumay cimri daa'im xabsi daa'im lagu wada xukumay kana disawba joognay ee viisadu ay noo xareysnayd ayaan masjiidka ka wacdinayay baan ku yidhi line baan noo xareysana noo soo duceeya qolada disawba fadhidana intooda badan waa qolo xagga soo eegaysa xaggan u bay soo eegayaan markii wacdigaan dhameeyo mid afka ii soo dhuubo anigana line baa ii xareysan kow dadka oo dhan line baa u wada xareysana Sheekh Xuseen ducada nagu soo kab markaasaan ku dhageyso annaka jamaacan nahay baan ku ilaahay dartii baan u soconaa dalka aan u socono wax adduunyo qarad oo kale nahay ma jirto ilaa dadka walaalahaya ee muslimiinta inaan soo ziyaaranno oo masaajid ay dhisteen aan soo aragno oo intooda khayrka haysana aan khayrka halka ka sii wada oo kordhiya khayrka inta shaydaanku uu la tagayna aan halkooga ugu tagno soo baraarujino inta kaliya annagu aan u soconaaye laynka baan noo xareysan oo laynkaas waa sax weeyaane noo soo ducee adigana waxaan kugu ducaynay kuwa kula mid ah meeshay ka yimaadeen hadday burca ka yimaadeen burca Allah ku celiyo hadday boosaaso ka yimaadeen boosaaso Allah ku celiyo hadday muqdisho ka yimaadeen muqdisho Allah ku celiyo markaas sheekwana habaaraysaa habaar maayna waa duca baan ku hadaad wax garanayso waa duco